Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan iyo channelkeennii Toyoton Media. Waxaynu halkii ka sii ambaqaadi doonaa taariikhdii taxanaa inoo ahayd ee dowladdii Cabbaasiyiinta. Qaybtii horena waxay noogu joogtay kacdoonkii ay sameeyeen dadkii deganaa gobolka Qum, kadibna Maamuun u diray ciidan uu hogaaminayo ninkii la odhan jiray Cali binu Hishaam, kaas oo ku guulaystay inuu ninkii kacdoonkaas hogaaminayay oo la odhan jiray Yaxya binu Cimraana inuu dilo kacdoonkiina uu halkaas ku soo afjaro. Haddaba maanta waxaynu ka sii ambaqaadaynaa gugii 212 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa. Haddaba daawadayaal intaynaa muuqaalkeenna gudagelin, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambeanu soo gelin doono, annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Gugii 212 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa waxaa ka mid ahaa Maamuun oo ku dhawaaqay kelmaddii isaga iyo culimmadii muslimiintu isku khilaafeen oo ahayd inuu qur-aanku abuurane yahay. Arrintaas oo ay ku taageereen dariiqo fikraddaas faafinaysay, laakiin waxaa gaashaanka u daruuray oo ka diiday warkaas culimmadii uu ka midka ahaa Imaam Axmed binu Xambal, iyagoo ku tala galay wax kasta oo ka soo gaadha inay u badheedhaan oo diyaar u ahaadaan. Sidoo kale wuxuu Maamuun ku dhawaaqay kelmad kale oo xag jira oo uu ku doonayay inuu ku raaligeliyo shiicadii Cali binu Abi Taalib, taasoo ahayd inuu Cali binu Abi Taalib Allaha ka raali noqdee ka fadli badnaa dadka oo dhan marka laga reebo rasuulkii calayhi salaatu wassalaam. Arrintaasoo culimmadii muslimiintu ay diideen, iyagoo qirayay inuu Cali ahaa imaam maqaam sare Alle gaadhsiiyey oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam, oo aanu jirin wax fadli ah oo u dheeryahay asxaabtii rasuulka. Aynu u nimaadno gugii 213 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa. Gugaas waxaa geeriyooday ninkii la odhan jiray Dalxa binu Daahir binu Xuseen, oo ahaa ninkii xukumayey gobolka Khuraasaan, waxaana lagu beddelay oo Khuraasaan loo magacaabay walaalkiisoo la odhan jiray Cabdulaahi binu Daahir binu Xuseen. Isla gugaasna wuxuu Maamuun xilal u magacaabay 2 wiil oo ay walaal ahaayeen, kuwaasoo kala ahaa Abi Isxaaq binu Haaruun. Wuxuu Maamuun u magacaabay gobollada Shaam iyo Masar, walaalkiis Cabbaasna wuxuu u magacaabay gobolka Jasiira. Gugaasna dhacdooyinkaas ayaa ugu mudnaa. Haddaba aynu u nimaadno gugii 214 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa. Bishii Rabiicul Awal ee gugaas waxaa la dilay guddoomiyihii oo Abu Isxaaq u wakiishay dhulka Masar oo la odhan jiray Cumar bin Waliid, waxaana lagu dilay deegaanka lagu magacaabo Khawf, halkaasoo ahayd meel mar walba qabaa'ilka degaa ay rabshado samayn jireen oo dowladda ay ku kici jireen. Markaas ayuu Abu Isxaaq laftarkiisu uu ku duulay degaankii caasiyoobay, wuxuuna gacanta ku soo dhigay oo dilay 2dii hoggaamiye ee kacdoonkaas iyagu hoggaaminayay, kuwaasoo la kala odhan jiray Cabdisalaam iyo Inajalis. Sidoo kale gugaas waxaa fallaagoobay nin la odhan jiray Bilaal Adaabi Ashaari. Markaasuu Maamuun wuxuu ku saaray ciidan uu hoggaaminayo wiilkiisii oo la odhan jiray Cabbaas, oo ay la socdaan saraakiil ay ka mid ahaayeen Cali binu Hishaam iyo Haaruun binu Maxamed binu Abu Khaalid. Markii ay meeshaas gaadheenna dagaal ayay la galeen ninkaa kacdoonka sameeyey. Ugu dambaynna ninkaas Bilaal la yidhaahdo waa la dilay, ciidankiisiina waa la jebiyey. Isla gugaasna waxaa Cali binu Hishaam loo magacaabay gobolladii kale ahaa Qum, Isfahaan iyo Adarbijan. Gugaasna dhacdooyinkaas ayaa u waaweynaa. Aynu u nimaadno gugii 215 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa. Gugaas wuxuu Maamuun hoggaamiyey ciidankii ku duulayay dhulka Roomaanka. Ciidankaasina wuxuu magaalada Baqdaad ka baxay 24kii bishii Muxarram ee gugii 215 ee Hijriga. Waana duulaankii ugu horreeyey ee uu hoggaamiyo Maamuun intii uu boqorka noqday. Maamulka magaalada Baqdaadna wuxuu kaga tegey ninkii la odhan jiray Isxaaq binu Ibraahim binu Muscab. kadibna Maamuun wuxuu sii maray deegaanada kale ahaa Mawsil, Manjaab, Daabiq, Antakiya, Masiisa iyo Tarsuus. Haddaba markii uu Tarsuus ka gudbayna wuxuu galay dhulkii Roomaanka. Halkaasna wuxuu gaadhay bartamihii bishii Jamaadul Uulaa, wuxuuna Maamuun weerar ku qaaday qalcad la odhan jiray Qaraa. qalcaddana xoog ayuu kula wareegay. Dabadeedna wuxuu soo furtay qalcado dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen qalcadda Maajida, qalcadda Sannaan, qalcadda Sanduus. Gugaasina wuxuu ku soo dhammaaday guushaas uu Maamuun ka gaadhay Roomaankii. Aynu u nimaadno gugii 216 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa. Maamuun markii uu duulaankaas ka soo laabtay oo magaalada Dimashq soo galay, ayaa waxaa la sheegay in mar labaad uu Maamuun ku duulay dhulka Roomaanka, kadib markii boqorkii Roomaanka ee la odhan jiray Raafiil binu Mikaa'il
uu xasuuqay dadkii degganaa magaalooyinkii uu soo furtay Maamuun oo kala ahaa Tarsus iyo Masiisa. bishii Jamaadul Awwal ayuuna dhulkii Roomaanka mar labaad galay, markan labaadna deegaano dhowr ah ayuu ka qabsaday. deegaanada uu qabsadayna waxaa ka mid ahaa Antigo iyo Heriqla oo isaga laftarkiisa ayaa qabsaday. walaalkiis Abu Isxaaq oo Masar ka soo laabtay oo isagu magaalada Dimashq ka soo raacayna wuxuu u diray oo uu soo furtay 30 qalcadood oo dhulka Roomaanka ka mid ahaa. intooda badanina waxay ku yaaleen dhulka Aasiyada yar. waa deegaanka Turkigu maanta ka taliyo. Maamuun halkaas ayuu ku sii nagaaday ilaa bartamihii bishii Shabcaan. dabadeedna boqorkii Roomaanka ee la odhan jiray Raafiil ergey ayuu u soo diray Maamuun, wuxuuna ka raali geliyey arrintii uu sameeyey. ergeygaasna wuxuu ku soo daray 500 oo muslimiin ah oo ay maxaabiis ahaan u haysteen, si uu Maamuun ugu raali geliyo dhulkiisana u badbaadsado. waxyaabihii uu hore u ballan qaaday oo dhanna markan wuu fuliyey kadib markii uu halis badan dareemay. gugaasina guushaas ayuu ku soo dhammaaday. aynu u nimaadno gugii 217 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa. gugan waxaa la dilay ninkii la odhan jiray Cali bin Hishaam oo muddo kooban isagu guddoomiye ka ahaa gobollada Qum, Isfahaan iyo Azerbaijan, kana mid ahaa saraakiishii ugu horreysay ee gacanta siiyey Maamuun daacaddana uu ahaa. kadib markii lagu eedeeyey inuu malaayiin lacaga lunsaday, dadkiina uu dhibay oo dulmi kala daalay. sidaas daraaddeedna waxa lagu xukumay xukunkii shareecada oo ahaa in la dilo. inta badanna Maamuun dilkiisu ma badnayn oo boqorradii hore oo kale ma ahayn, wuxuuna dili jiray ruux dhibaato ballaadhan geystay oo dhowr jeer markii la cafiyey isagu dembigii halkii ka sii waday oo aan ka waantoobin. dhanka kale, dowladdii Umaawiyiinta ee Andalus waxay awooddoodii ku soo ballaadhisay oo maamulkeedii hoos keentay meelo badan oo ka mid a dhulka galbeedka Afrika iyo dhinaca waddamada Yurub. waxayna ku tallaabsatay horumar badan iyadoo soo kordhisay horumar xagga ilbaxnimada ah oo ku saabsan dhuuxidda diinta Islaamka iyo horumarinta cilmi baadhisaha kala duwan oo ay ku samaynayaan cilmiga koonka. waxayna tartan kula jirtay dowladdii Cabbaasiyiinta ee xarunteedu ahayd magaalada Baqdaad. aynu u nimaadno curashadii gugii 218 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa. gugaas wuxuu Maamuun wiilkiisii Cabbaas u diray dhulka Roomaanka, wuxuuna amar ku siiyey inuu dego meel la yidhaahdo Tawaana, halkaasna uu ka dhiso qalcado iyo dhufaysyo adag. wuxuuna ku daray raggii farsamada dhismaha yaqaanay iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa. halkaasna wuxuu ka dhisay gidaar adag oo dherarkiisu yahay 1 mayl dhinac walba, wuxuuna u sameeyey 4 ridood. magaaladaasna waxaa halkaas looga dhisay inay noqoto difaaca koowaad ee lagaga hortago weerar kasta oo ka yimaada Roomaanka. waxaana loo sameeyey ciidan joogto ah oo iyagu mushahar joogtaa qaata. bal haddaba aynu u nimaadno dhinaca doodihii diinta iyo fikradihii cusba ee uu la yimi Maamuun. Maamuun boqorradii hore wuu ka duwanaa oo wuxuu noqday nin wadaad ah oo diinta aad u bartay oo culimmadii waaweyneed inuu la doodo gaadhay. laakiin waxaa lagu ibtileeyey inuu culimmadii muslimiinta iyo garsoorayaashii dowladda ku wareeriyo masalo aan la garanayn meesha uu ka keenay iyo cidda ku soo shubtay. wuxuuna ku furay dood aan hore loo arag oo colaad iyo nacayb soo kordhisay oo culimmadii oo dhanbu wuxuu amar ku siiyey caqiido uu isagu keensaday oo diinta aasaas uga dhigay inay duduub ku qaataan oo rumeeyaan. haddii ay arrintaas diidaanna uu marka koowaad xilka ka wada qaadayo, sidoo kalena inay dadka wax u sheegaan laga mamnuucayo. haddii uu ku sii adkaystana laga yaabo inuu naftiisa ku waayo. haddaba gugii 218 Maamuun wuxuu waraaq u soo qoray ninkii la odhan jiray Isxaaq binu Ibraahim oo ahaa kusamihii uu xarunta dowladda ee Baqdaad kaga tegey. Baqdaad oo markaas ahayd xarunta ugu weyn ee culimmada Islaamku fadhiyeen, maxaa yeelay Baqdaad iyo Kuufa iyo Basra ayaa ahaa waayahaas xarumaha ugu waaweyn ee culimmada ugu badan ay joogaan, kuwaasoo ay isku qabteen Maamuun masalo uu soo kordhiyey oo ku saabsanayd qur-aanka. ninkaas uu waraaqda u soo dirayna ee magaalada wakiilka uga ahaana wuxuu ku amray inuu imtixaamo garsoorayaasha, culimmada xadiiska iyo fuqahadaba. sidoo kalena wuxuu amar ku siiyey inuu qaar ka mid a culimmadaas inay isaga ugu yimaadaan magaalada Riqa oo uu markaas ku sugnaa si ay halkaas ugu doodaan. amarkii uu soo siiyeyna waxaa ka mid ahaa, waxaad isugu yeedhaa garsoorayaasha halkaas kula jooga, dabadeedna waxaad u akhrisaa qoraalkan aan kuu soo diray. waxaadna weydiisaa si aad u ogaatid waxa ay rumaysan yihiin inuu Allaweyne qur-aanka abuuray iyo in kale. una sheeg amiirka mu'miniintu inaanu shaqo u dhiibanayn oo shacabka uu mas-uulka ka yahay
xilkooda ku aamineen qof aan diintiisa lagu kalsoonayn oo yaqiinba aan haysan. marka ay sidaas qiraan oo amiirka mu'miniinta waafaqaan jidkii toosnaa bay ku taagan yihiin iyo sidii lagu badbaadayey. hadday markaa kula qaataan arrinkaas waxaad amar ku siisaa ciddii u timaadda oo markhaati furaysa inay iyagana imtixaamaan oo ay ogaadaan masaladan qur-aanka waxa ay ka qabaan. haddaba qofkii qiri waaya qur-aanku inuu wax la abuuray yahay waa inaan markhaati loo oggolaan. haddaba isagoo weli hadalkiisii dheeraa sii wata oo kusimihii Ciraaq la hadlayay wuxuu ku yidhi, markaad amarkaas fuliso dabadeedna waxaad ii soo qortaa wixii aad kala kulanto garsoorayaasha dhulkaas jooga. dabadeedna jawaabta ay ku siiyaan ha kaga hadhin ee kormeer ku hay oo hubi inaan la socodsiin markhaatiga ay furayaan dadka aan ahayn kuwa diinta yaqiinta u leh. dabadeedna wuxuu ma'muun wakiilkiisu u soo qoray 7 nin oo ka mid ahaa culimmadii dhulkaas joogtay, wuxuuna amar ku siiyey inuu u yeedho oo ku imtixaamo waxa ay ka qabaan qur'aanka abuuristiisa. markaasuu dhammaantood isugu yeedhay oo Baqdaad soo wadageliyey. markaasuu ku imtixaamay oo su'aalihii weydiiyey qur-aanku inuu wax la abuuray yahay iyo in kale. dhammaantoodna waxay raaceen sidii uu amiirka mu'miniintu qabay oo waxay yidhaahdeen qur-aanku waa wax Alle abuuray. markaasuu wada fasaxay oo ay shaqadoodii aadeen. warkooduna meel walba wuu gaadhay oo culimmadii fiqiga iyo kuwii xadiiskuba warkoodii ayaa gaadhay. waxaana ku jiray culimmo lagu kalsoon yahay oo uu ka mid ahaa Yaxya binu Maciin, sidoo kalena ay imaam Axmed binu Xambal saaxiib ahaayeen. bal haddaba aynu isla yara eegno gedan cusub ee uu la soo baxay Maamuun. siday noo muuqataba Maamuun wuxuu culimmadii ku dirqinayaa fikrad uu isagu wato, oo caqiidadii iyo tawxiidkii ayuu wax kale oo aanay hore u aqoon uga dhigay, oo sidii ay qabeen oo soo barteen waxaan ahayn oo Alle sidii uu sheegay oo ay iyagu haysteen si aan ahayn u fasiray. isagu haddii uu sidaas u fahmay oo ay naftiisa ku koobnaan lahayd dhib ma lahaateen, balse wuxuu ku dhaqaaqay arrin caqliga ka baxsan oo wuxuu maagay inuu dadka oo dhan sidaas ay isaga la tahay qaataan oo rumaystaan. arrintii wuxuu u fasiray qur-aanku haddii la yidhaahdo wax la abuuray ma aha inaad shirki iyo gaalnimo ku dhacday, waa sida uu isagu dhigay. markaa qofkii aan sidiisa qaadan oo rumaysan wuxuu ku xukumay inuu diintiiba ka ridoobay oo shirki iyo gaalnimo galay. marka culimmadii waxay ku jiraan xaalada laba daran mid dooro. mid waxa weeye inay qur-aankii Alle ku sheegaan waxaanay hore u maqal oo ah inuu yahay wax Alle abuuray, taasoo aanay garanayn dembiga uga iman kara dhinaca Alle, iyo inay diidaan oo gaalnimo lagu xukumo oo sidaas lagu dilo. markaasay qaarba sii yeeleen sidii ay ka fursan waayeen, laakiin ugu dambayn Allah soo kala furtay oo baryadoodii aqbalay, siiba kuwii u daacadsanaa oo Axmed binu Xambal ka mid ahaa, oo isagu ku talagalay waxaanu Alle ka maqal inaanu qur'aanka ku sheegin xataa haddii la jarjarayo. ducadii culimmaduna waxay sababtay in boqor Maamuun uu si kedisa u geeriyoodo. haddii Eebbe idmo qaybta dambe waxaynu ka sii qaadi doonnaa geeridii Maamuun iyo siyaabihii ay u dhacday. maantana insha Allah halka inoogu joogto. wassalaamu calaykum.